shirweynaha isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool iyo maamulka Khaatumo ayaa waxa uu si rasmi ah uga dhacay deegaanka Saaxdheer. shirkan ayaa looga hadlayay qaabka ugu wanaagsan ee si wada jir ah looga adeegsanayo qaabka loo qabanayo shirweynaha Khaatumo 3 waxaana ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Saaxdheer. ambaaraynayna waxa weeyaan maamulku sheega Soomaaliland oo si bareera dadkan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn si bareera ugu soo duulay dhibaato weyn oo geystay aad iyo aad baan u ambaaraynayna. aan taageerayna qaankii beesha caalamku ay u soo jeedisay arintaas anagu waa taageerayna boqol baan ku taageerayna waan uga mahadcelinaynaa. waxaan dadweynaha reer Khaatumo u soo jeedinaynaa dalkooda lagu soo duulay inay qaataan wixii waajib ku ah oo waa maxay waxaan sheegaynaa oo faraynaa inay dagaal u diyaar garoobaan ay cadowga iskaga celiyaan. dawladda kuma nihin cidna la diriiri mayno waxaanu ku soconaa waa dhulkayagii waa dumarkayagii waa caruurtayadii waa magaalooyinkayagii. ambaaraynayna oo mar walba ambaarayn kaliya aan kaga harayn weerarka qaawan ee waxashnimada ee mar walba dadka Soomaaliland ay ku soo qaadaan dowlad goboleedka Khaatumo iyo dadkeeda iyo dhulkeeda. ma ahaan doonta hadda kadib wax la yiraahdo ambaarayn inta halka joogto baa difaaci karta. wallahi aynu cagaha dhulka ku xajino oo tii maalintii dhawey 3-4 jeer oo tii maalintii dhawoo kala oo dhacda baynu wax badan aynu maanta tuhminayna naga maqan yihiin aynu ku heleynaa aynu ku dhiirano inaynu wax iska celino. waxaan u malaynayaa walaaleyda war meeyan islaam ahayn war dad islaam ahaynuna war dhiigiina ma rabno war waxaas waa ina daashadeen waa ka soo daalay xiisa uma qabno. wanaag gudaha iyo dibadda meel kasta joogtaanba inaad u diyaar garowdaan dagaal isdifaac iyo xoreyn deegaanadaada ah inagoon cidna ku duulayn baanu dhawaaq dheer haddii anoo ku hadlaya afka maamulka ayaanu jeedinaynaa meel kastoo la joogana loo diyaar garoobo dagaalka. kulanka looga hadlayay sidii loo qaban lahaa shirweynaha Khaatumo 3 ayaa gabagabadii waxaa hadallo kooban ka soo jeediyay madaxweynaha maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Halac Indhasheel iyo Professor Xildhibaan Cali Khaliif halka ugu dambeyntiina kulankan uu soo horay garaad Jaamac garaad Cali garaadka guud ee maamulka Khaatumo. ka yaal hadii loo laga hadlo yaale sarar baa geelaygu daaqi jiray geelaygu ceelafooyin buu daaqi jiray hadii bidkeeda leeyahay anu dhulkaygiiba ku noqonaya mid ay leeyihiin ma rabo ma baato mid ay leeyihiin. qodobka labaad waroy degaan wuxuu xoreyn mayna waxaynu xoreynaa Khaatumo oo midaysan oo midnimo ah. degaan aynu wuxuu xoreynaynaa haddii reer Bohol la tahay haddii reer Saaxdheer tahay haddii reer Taleex tahay war waa bullshit weeye waxaas. tanaynu wada leenahay oo taasaynu wada leenahay oo mid kastoo kamid aynu wada leenahay oo ilaa iyo jidali baynu wada leenahay wada jir baynu xoreynaynaa. bulshooyinka caalamka oo uga mahadcelinaynaa go'aankooda dambe ee ah in maamulka gardarrada ugu soo duulay ama qabiilka maamulaysan ee gardarrada ugu soo duulay deegaamadayada iyo kan kale ee afka ka sheegta in labadaba la yiraahdo faraha kala baxa deegaamada Sool Sanaag Cayn ama Khaatumo. waxaan u sheegaynaa haddii taa aan laga dhabayn haddayaan rasmi noqon dadka iyagu wuxuu joogaa heerkii ay gaari jireen bini'aadamku in ay isqarxiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo ay dhibaatada haysata isaga dulqaadaan balaayo kasta ay u yeeran karaan wixii ka yimaada ee dhibaato ama mas'uuliyadooda waxaa qaadi doona dawladda dhexe ee u hambalyeynaysa ee madaxweynuhu sheegayay u hambalyeynaysa nimanka kala goynaya wadankii madaxda looga dhigay
kuwaasaa qaadi doona waxaa qaadi doona dawladaha dariska waxaa qaadi doona bulshooyinka caalamka heer kasta oo ayn annagu nala gaadhi karayso wax kasta oo aanu u cuskanayno si kasta oo aanu u gaadhi karayno in aanu maamulka qabiilaysan isaga saaro waanu samayn doonaa haddii eebbaydno ka fadhiisan mayno ka joogi mayno ka dulqaadan mayno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in uu qalbigeenna ururiyo dhibaatada reer Khaatumo dhexdeeda taa loo ka qaado quluubtooda isu soo dumay isagaa isu dumo quluubta oo ilaahay quluubtu isu dumana quluubteenna inuu isu soo dumo ilaahay waxaynu ka baryaynaa laba talaba tiiroon inuu waafajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa cadowgeenna cadow kaafiyo inuu ku beego ilaahay waxaynu ka baryaynaa birteen xabadeenna inuu bir uga yeelo xabadeenna inuu bir uga yeelo doodana inuu biyo inooga yeelo baal dabale qaade Allah ka yeelo